Asalaamu calaykum dhammaan mucaashaqiinta xiisaysa Konami ama eFootball meel walba dadweynaha ku joogtaan kusoo dhawaada muuqaal cusub. Wax kastoo khamiis ah waxaad igaga barateen inaan idin soo gudbiyo waxyaabaha sida rasmiga ah loo keeni doono ama ciyaaryahan ha noqdo ama campaign ama wax kasta oo gameka ka cusub oo maalinta khamiista ah sida rasmi ah loo keeni doono. Waxaan idin soo gudbin doonaa waqtiga gameka la soo fasixi doono iyo ciyaaryahanada sida rasmiga ah loo keeni doono ayaan isla eegi doonaa, iyo wixii campaign ama bagis ah oo la keeni doono ayaan isla eegi doonaa. Haddii aan ku hormarno bagiskan isbulan muuqaalkii kugu horeeyay waa kugu sheegay bagiskan oo 1500 aad ku furanaysa ayaa la keeni doonaa. Dhanka kale haddii aan isla eegno championskan oo asigoo sidii Barcelona ama Arsenal loo keenay oo rule 1 rule 2 rule 3 rule 4 rule 5 uu leeyahay ayaa la keeni doonaa rule 1 kiisa oo markaasi ay ku aadan tahay taariikhda 28keeda. Dhanka kale haddii aan isla eegno play of the week-yada maanta si rasmi ah loo keeni doono waxaa ka mid ah Konami horta waxay shaacisay sawirkan saddexdan ciyaaryahan oo si rasmi ah loo arkeenin ayaa markaasi shaacisay in si xaqiiqi ah loo keeni doono. Saddexda ciyaaryahan haddii aan ku tusiyo, ciyaaryahanka koowaad oo gacmaha kor u taagayo waa ninkan la yiraahdo Maddison oo Tottenham u ciyaara. Sawirka labaad waxa waaye Bukayo Saka, sawirka saddexaadna waxa waaye Valverde oo Real Madrid u ciyaaro. Marka ciyaaryahanada sida rasmi ah loo keeni doono waxaa ka mid ah oo aysan baaqanaynin saddexdan rag oo halkan ugu jeedo Valverde, Mohamed Salah iyo ninka Maddison la yiraahdo. Si rasmi ah baa loo keeni doonaa mana baaqan doonaan. Haddii aan isla eegno dhanka kale, haddii aan ciyaartoydan mid aan kaaga taabto, Mohamed Salah ratingkiisa wuxuu gaarayaa 96 ayuu ku bilaabanayaa, 102 ayuu gaarayaa. Ninka kale ee la yiraahdo Valverde wuxuu gaarayaa 96 ayuu ku bilaabanayaa, 100 ayuu gaarayaa. Ninka kale James Maddison asagana wuxuu ku bilaabanayaa 95 wuxuuna gaarayaa 99. Ciyaaryahano kale oo waxaa jirto 50-50 ah in la keeno, weliba in la keeno ay u badan tahay oo 70% in la keeno markaasi ay u badan tahay. Waxa waaye ciyaartoydaas laba qof waaye, labada qof waxay kala yihiin ninkan la yiraahdo Enzo Fernandez oo Chelsea u ciyaaro 95 ayuu ku bilaaban doonaa, 99 ayuu gaari doonaa. Ninka kale waxa waaye Harry Kane waxay u badan tahay in la keeno, wuxuu ku bilaaban doonaa 96 wuxuuna gaari doonaa 101. Waxaan isla eegi doonaa waqtiga gameka la soo fasixi doono. Waqtiga gameka la soo fasixi doono mid ma idinku sheegi kari wadan walbo, laakiin shaashada ayaan idin soo saarayaa. Haddii aan ku hormaro dalkeena Soomaaliya, gameka waxaa loo soo deyn doonaa 5 saac oo maanta subaxnimo ah. 5 saac ayaa la soo deyn doonaa gameka. Wadamada kale shaashada ayaan idin soo saari doonaa, wadan walbo iyo waqtiga oo gameka loo soo deynayo halkan ayaad ka arkaysaa. Saa u jeedabo wadan walbo waqtiga gameka loo soo deyn doono iyo waqtiga gameka loo soo deyn doono mid walba halkan ayaad ka arkaysaa. Haddii aad muuqaalka dhammaadkiisa aad nala soo gaartay, waxaan kaa codsanayaa inaad muuqaalkan like saarto, channelka subscribe dhahdo, muuqaalkana gambaleelkana aad furato, muuqaalkana aad like saarto.